السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوداش قروحدا بدن ku xiriirto channelkayga Tii Tacadi Show meel walba aad dunida ka joogtaan si walba muuqaalkan idin soo gaari doon waxa idin leeyahay maalin wanaagsan niman ciidan wadan ciilka ma bixinaada Soomaalidu waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa la subscribe dhaado channelka videogana like ii saartid waan ku mahadsantihiin mar walba daawashada videoda soo dhigo kuna soo dhawaada muuqaal cusub sidoo dhac barnaamijkaba ku soo aragteen maanta magaalada Muqdisho waxaa lagu soo dhaweeyay Abiy Ahmed ma ahan markii koowaad ee Abiy Ahmed uu magaalada Muqdisho imaado dowladii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar ayuu sidoo kale Abiy Ahmed yimid magaalada Muqdisho. Abiy Ahmed sida ogtihiinba wuxuu sheegay ama Soomaaliya xoog ha uga qaato ama xeelad ha uga qaato in 88 milyan oo Itoobiyaan ah aan inta ka badan u dul qaadan karin in ay badla'aan noqdaan. laakiin maanta wuxuu sameeyay Xasan Sheekh Maxamuud xasan wuxuu sameeyay Abiy Ahmed intuu soo dhaweeyay oo madaxtooyada geeyay kadibna wuxuu u sii galbiyay xeebta Liido aamin muuqaalka ayaad ku arki doontaa oo aan ku falanqeyn doonaa. sidoo kale ciyaal xamarkii xeebta Liido joogay ayaa ku horiyay Abiy Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayagana waa arki doontaa. sidoo kale wiil Soomaaliyeed ayaa ku naf waayay maanta xeebta Liido oo askarta dowladda ay madaxa xabad kaga dhufteen asoo wadankiisa jooga asoo dhulkiisa ku raaxaysanaya asoo xeebta Liido damaashaad u jooga waana la dilay wiilkaasi. ilaahay ha u naxariisto. qodobadaas oo dhan ayaa barnaamijku daawo doontaa adigana abaayo waxaan kaa codsanayaa haddii aad cusub tahay inaad subscribe ii dhaahdo haddii aad hore ila joogtayna si hagar la'aan ah inaad videogan like iigu saartid ceel ima qodna cidna ima maqnee. marka hore waxaa rabaa soo dhaweyntii loo sameeyay markii uu kasoo degay elaboorka iyo shiribkii loo shirbay inaa ila daawataan. sida arkaysaan qoladaasi waa qolada shiribta ee waqooyiga Muqdisho ka soo jeeda oo ku shirbaya isdiidanay danaa dhaxtaal. meesha wax ka fahan isdiidanay danaa dhaxtaal. Itoobiya iyo Soomaaliya raali iskama ahan ismana rabaan haddii ahaan lahaayeen dowlad iyo haddii ahaan lahaayeen shacab. qof kasta oo Soomaaliyeed Itoobiya markuu maqlo waa uu ka caroodaa. qof kasta oo Itoobiyaan ahna I think inuu sidoo kale Soomaali usan jeclayn laakiin waxay ku shirbeen isdiidanay danaa dhaxtaal ama isdiidanay danaa dhexyaal. macnaheedu tahay labadaa qof isma ogola laakiin waa laba wadan oo deris ah oo derisnimadaasi dani ugu dhexayso. waa macnaha laba qolo oo deris waaye deriskuna mar walba dana ay isaga baahan yihiin. sidoo kale Itoobiya waliba danta ugu weyn ay Soomaaliya ka leedahay waa biyahaas ilaahay noogu deeqay xeebta ugu dheer Afrikana siiyay ee Indian kan iyo Ocean kan. Abiy Ahmed wuxuu yiri sida ogtiinba 88 milyan aan nahay intaan kadibna uma dul qaadan karo inaan badlaan noqono. marka Soomaaliya laba mid ay soo galay ama inay xeelad wax nagu siiso oo ay ku mahadsan yihiin ama inay xoog ugu qaadano waana ka xoog badan nahay. okay markii Abiy Ahmed uu yimid oo la soo dhaweeyay oo isdiidanay danaa dhaxtaal loogu shirbay waxaa loo galbiyay aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya. markii loo galbiyay kadib wixii dan ay ka wada hadli lahaayeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Ahmed wayba ka wada hadleen waxay isdhihi lahaayeenna waa ay isdhaheen kadibna waxaa loo sii galbiyay xeebta Liida la geeyay. ninkii badaa saa u daawaday ninkii waxaa maanta arkay yaa kaa celinaya waaye. marka ciyaalkii xeebta Liida joogay oo ciyaal xamar waa taqaani ciyaal xamar foodo ma dhaafaan madaxweynihii iyo Abiy Ahmed bay ku wariyeen xasan tuug bala isla aragno. Abiy Ahmed
يا حشي مع شعب بس كعمل إنه عيالك إنه حتاجين حسن توك حسن توك حسن توك. أوكي ما أنت هرتا مجال المقدسة أردن وحرنيت أبي أحمد أو اسكو صعد كجديد كإيدتك بلما أقولين أنتوا ولا حيسا إلى بوركا إلا إيد مدحتوية في الصومالية اسكو صعد كجناعسي وحكستو ساكي سحب صميله مجال المقدسة وجمسعنين ما دام هو إيماني أبي أحمد أنت وحكم إكانين مركي حسن الشيخ محمود لجو أوريي عيال حمر أي قيليان ay hooshooda dhamaysteen ay iska gadoomeen ciyaal xamarkii ku ooriyey madaxweynahoodii waa loo soo degay sidaana lagu dhigay bay askarta ula dhaqmeen caruurtii Soomaaliyeed dhalinyaradii xeebtoodii wadankoodii ilaahay kuma neestay iyo nimcadaasi iyo qoraxdaasi iyo hawadaasi macaan ee freshka isaga raaxaysanaya baa waxaa loo dilay oo loo garaacay ra'iisul wasaare dalka la nooga yimid ee Abiy Ahmed la yiraahdo wiilka Soomaaliyeed madaxa xabad loogu dhuftay ugu dambeyn badda dhexdeed waliba biyihii dhan ayaa waxay isku bedeleen dhiig waliba dadka waxay sheegayaan TikTok-ga kommentiyada oo meesha goobjooga ka ahaa in wiilka madaxiisa uu burburay kadib markii ay madaxa xabada ay kaga dhacday waa nasiib daro weyn iyo ayaan daro dalkaaga ku raaxaysanaya nabad ku soo kacay damaashaad aaday gurigaaga ka soo quraacday si nabad ah isdhahay xeebtaadii dalkaagii ku soo raaxayso kadibna ka soo gadoon gurigaaga u soo laabo laakiin hooyada iyo aabaha iyo familkaaga la soo gaarsiiyay fariin aan u wanaagsaneyn dhagooda oo ah wiilkiina waa la dilay waa xanuun runtii waana arin laga naxo mudan waa in laga naxay mudan tahay wiilka Soomaaliyeed intii awoodda commentiga ugu duceyso waxaa laga yaabaa ducada in Ilaahay uu aqbalo anigana meeshaan ugu duceyn doonaa Ilaahay uu naxariisto oo qabrigiisa Ilaahay uu afsiyo gacanka xaq daran ayaa kulay dishay marka dalka waa soo hagaagayaa dhanna dhibaato ka jirto waa ogtihiin maanta dagaal ka dhacay Balcad nimankii soo galay Balcad ay qabsadeen waxay tageen saldhigii ciidamada booliiska Balcad wixii maxaabiis ee dawladda markii hore u xirnaa iridii oo u qaadeen waxay dhaheen magaaladiina gala magaaladii cabaar joogeen waxay dili karaan ay dileen waxay qaadan karaan ay qaateen haddana way isaga tageen marka dawladdaas ma loo dekanoobi karaa shacabkee ku dhiiran kara inuu marka dawladda taageero haddiiba maanta Balcad oo 30 kilomitir magaalada Muqdisho u jirta adoo ku nool inta lagu imaado adoo iska jiifa nimankii dawladda ahaa ee aad ku ogeed magaalada ay dhagahaaga soo gaaraan waa laga qabsaday magaalada nimankii kala maamulooyo qalbigaaga wadnaaga soo noqon karaa ma dawladdaas loo dekanoobi karaa ma dawladdaas taageero af iyo adinba lagu taageeri karaa su'aasha jawaabteedu waa maya wax la taageeri kara ma aha sababtoo ah la dagaalanka argagixisada macnaha kama ahan dhab dawladda maalin walba waxaa la qaadanayaa saadkii waxaa la qaadanayaa gawaaridii dawladda waxaa la qaadanayaa rasaastii qoriyii dawladda markaan argagixisada qoriba ma soo gataanba markii dufcad ciidan ah ay u soo xiraan tababar meeqa waa la tirinaa 200 askari okay xiray hebel ee qoriyaha yaalaani aan ka soo qaadno dawladii la soo weeraray xiradii ka cararayaan markaas wixii qori meeshii yaali iyo rasaas la soo aruurinaa ciidankii loo qaybinaa marka waxay noqdeenba meel loo soo shaqatay noqotay dawladii waliba dhankan shabeellada dhexe oo madaxweynaha reerkiisa ay degan yihiin waxay noqotay meel beelax oo hubka dawladda la saga qaato gawaarida dawladda lagu jiito marka ma loo dekanoobi karo marka waxaa dhacday marka in maanta Abiy Ahmed uu dalka yimaado dadka Soomaaliyeedna khasaare ay ka soo gaarto guri Soomaaliyeed maanta laga ooyo Abiy Ahmed dartiis cunuga dhalinyarada halka lagu dilo marka video intaan ku soo gabagabeynaa tan kulantideena dambe waxaan markale si naxariis la kaaga codsanayaa daa cusub tahay inaad subscribe ilaada channelka
haddii aa horey la joogtayna inaad videogan saartid like oo ay igu dhiirigelisid si mar walba aan u jeclaysto inaan wejiyadiina hor imaado oo wixii ugu dambeeyay Soomaali dhexdeedna arrimaha bulshada ay idinka dabageeyo tan iyo kulantideena dambe nabad